garabkayga wax taagan Ifraax Axmed oo ka socota dalada Nafis Ifraax marka hore carreedig baan kugu soo dhaweynayaa waxay ku beegan tahay maalinta gudniinka loo asteeyay in laga hadlo joojintiisa dabcan halkan dood baa ku qabateen kaga hadlaysaan siyaasadaha laga yeelan karo gudniinka iyo inuu istaago marka hore maxay idin ka dhigan tahay in maalinta gudniinka aad ka doodaan oo ka hadashaan walaalo aad baad u mahadsan tahay waan ku dhawahay carre edag magacaygu waa Ifraax sidaad hore adiguba uga dhawaajisay walaalo waxay ka dhigan tahay in laga hadlo dumarka caafimaadkuna dumarka iyo dhammaan bulshada iyo bilaaadankaba muhiim buu aad ugu yahay qofka bilaaadankii hadduu xanuunsanayo يعني bulsha xataa ilmo caafimaad qaba ma soo saari karo hooyadu haday xanuunsanayso ilmo caafimaad qaba ma korin karto marka maalinta gudniinka in laga hadlo oo aan maanta doodan sharafta badan ee wasaaraddu soo abaabushay aan ka hadalno muhiim bay aad noogu tahay annaga shaqsi ahaan nafis waxay u taagan tahay sidii loo dabar jari lahaa gudniinka habluhu u heli lahaayeen caafimaad ugu noolaan lahaayeen qaabkii ilaahay u abuuray marka gudniinku wuxuu ka soo horjeedaa caafimaadka dumarka xuquuqda aadamaha iyo walaalo bilaadanka ilaahay sidoo abuuro ku karaameeyay sharaf iyo qaab dhismeedka qofka bilaadanka nafis ahaan in badan baa ka shaqeynaysan shaqada gudniinka dabcan in hooyooyinka soo urursaan oo qaarkood shaqo abuur samaysaan inaad fikrado kale MCH-da tagtaan inaad ma garanaysaa qaarkood umulisooyina aad u sheegtaan systemkan ay u sameynayaan maaha system kale oo ay u sameyn karaan inuu jiro maxaa qabateen shaqo maxaa ka qabateen oo la taaban kara inay wacyigelin samayseen inay barnaamijyo kale ka shaqaysaan dad badan waxay aaminsan yihiin inay leeyihiin ururada ka shaqeeya FGM-ku yagaa keena in FGM-ku sii socdo muddo oo yagaa keenaya because shaqo badan ma qabanayaan arrintaa maxaad ka leedahay bismillah horta Nafis Network 20 sano u dambeeyay ama 15 sano u dambeeyay waxay ka shaqeynaysaa dhammaan gobolada Soomaaliland marka la rabo shay in la dabar jaro waxa loo baahan yahay bulshada in la fahansiiyo haddii aanay bulshadu fahansanayn shaygii kalama hadli kartid dawladda waayo waxaad arkaysaa daddiya way ka soo horjeesanayaan dadkii yacni fikirka ma haystaan waxaad ka hadlayso marka horta Nafis number 1 waxay qabatay waxa wacyigelin loo sameeyay xubnaha bulshada ay ka kooban tahay oo dhan sida ragga dumarka dhalinyarada iyo hablaha sidoo kale waxaanu dadka barnay in gudniinka habluhu aanu in hablaha la jarjaro oo jirkooda la jarjaro oo qaabkii ilaahay u abuuray si ka duwan loo sameeyo ay tahay caado dhaqameed aynu ka soo dhaxalnay dadkii hore laakiin aanay ahayn arrin diiniyana dadku berigii hore waxa iskaga khaldanaa gudniinku waa diiniyan in hablaha la jarjaro oo saa loo galo iyo ma aha horta taa waanu u bayaaminay annagoo isticmaalayna fadwooyin kala duwan oo even sheekhyadu maxaa la yiraahdaa sii daayeen caafimaadku waxay ka dhaheen maxaa la yiraahdaayay international ama caalamiga dunida kale waxay ka tiri annagoo u soo xiganayna Nafis waxyaabaha kale ay qabatay waxa kamid ah waxay leedahay group la yiraahdo HCG ama Women Self Help Groups 20,000 qof oo dumar weeyaan marka gruubadani ayaa Hargeysa jooga kuwaas oo ku dhiiranaya xataa inay soo gudbiyaan imanka markii la tababaray arrimaha tacadiyada caruurta sida kufsiga gudniinka hablaha ka wacyigeliya xaafadaha oo hadii ay arkaan inaan gudniin lala damacsan yahay xataa soo gudbiyo wasaaradda u soo sheego Nafis u soo sheega hadii ma garanaysaa gabadhu ku dhaco domestic violence ama tacadiyada jinsiga ku dhaco inay soo gudbiyaan marka dadkeenu hadda way baraarugsan yihiin siyaasadana waa u diyaar waanu u diyaarinay laakiin waxa ay ka xaniban tahay dhinaca dawladda iyo line ministerska dhexdooda oo wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo wasaaradda caafimaadku kala aragti bay ka qabaan siyaasadda ugu dambeyn fariinta u dirayso hablaha Soomaaliyeed ee daawanaya waa maxay hablaha Soomaaliyeed fariintan u diray waxa weeye in ay iska kaashadaan oo ay garab iska siiyaan shay kasto dumarka tacaddi ku ah ama shay kasto dumarka waxyeelo ku ah haday noqoto gudniinka hablaha haday noqoto kufsiga hablaha haday noqoto tacadiyada jinsiga ku salaysan ee dumarka ku dhaca ee bulshadeenuna ay hoos u eegto oo aanay waxba ka soo qaadin inay dumarku iska kaashadaan sidii ay siyaasad u heli laayeen oo ay keenaan 20,000 oo saxiix oo aan baarlamaanka la hortagno si aynu u helno siyaasad iyo sharci dhaqan gala